ciidanka halkan aad ku arkayso dabadayda taagani ciidan beeleed buu ahaa maantana wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo ciidan qaran oo qaranka Soomaaliland jananka ciidamadana waa ka wada hadalay oo saraakiisha Soomaaliland jananka laftiisu inuu yimaado ciidanka halkiisa ku baandhaysto eego aanu diyaar u nahay halkan waxa la yiraahdaa kulmiye aagii ugu weynaaye SNM ay bari ka difaacaysay bay ahay hadda halka geesta bariga waxay ka xigaan waa banaan halkanuna biyana waa leedahay tamaandhana waa beerina waa leedahay ciidankaas waa ciidanka wixii laga sheego ee kale ee la sheegaya ninkii cadeyn waaya dambe baanu ku haysanaa waa Soomaali weyn waa Puntland wax kasta baa la yiraahdo dicaayadka dhulka lagu qubayo waa ka jawaabaynaa dacwadna waa ka furanaynaa waana ka ashkatoonayna dawladana waa ogeysiinayna in waxba ka jiro taliyaha dhalinyaradan aan wali xukuumadda Soomaaliland qaramayn Master Toshle oo isaguna ciidamadiisa ka xog waramayay ayaa wuxuu yiri waa sida ay ku sheegeen wayelka beesho waa ciidan u diyaara qaramaynta Jamhuuriyadda Soomaaliland hadda laba qaran wax qaramiye ma jiraan kala daadiyaa nalay naguna ururinayna goobta labaad ciidanka kale noo jooga inaan rabno inaanu qaramayno waa degmada la yiraahdo Goof halkan waa meesha la yiraahdo Kulmiye labadaba waa garanaysa waana laba goobood muhiim intaas in labadeed leeg ba Goof loo joogto inta nin leekina way noo joogtaa yana naga mafga anigoo ku hadlaya afka deegaankan ciidanka halka taagan wuxuu diyaar u yahay oo direeska iyo qoriga uu sitaa difaaca dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay ciidankaasi idinku diyaar idin yahay waxaanu doonaynaa inaad qaramaysaan halkooda inaad ku qaramaysaan inaad ka faa'iideysataan ayaanu u baahnahay halka ragga iyo hubka waxaanu u soo saaray difaaca dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa muqaddis anigoo ku hadlaya magaca deegaanka Kulmiye waxaan leenahay ciidanku waxa weeye ciidan Soomaaliland marka sida loo turjubanayna ma halkan uu joogana waa meel beelaha hooda ku alaawo iskaga tigi hadii la leeyahay Soomaaliland waa wixii bixin ka sheegana lama sheego hadii meel Soomaaliland ka mid tahayna waxa weeye meel waajib u leh saldig iyo ciidan waxaan u baahanahay halkan la ku qaramay si kastaba ha ahaatee